بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada qayb ka mid ah barnaamijka aan ugu magac daray London My Hometown Blog oo aan ku soo bandhigo meelaha taariikhiga ah ee caasimadan qadiimka ah ee London. Soo horey kugu sheegay London waxay ka kooban tahay 33 degmo ama boroughs ay ka kooban tahay oo aad u weyn 9.18 million dad ahna way ku nool yihiin oo maaragtay different nationalities ah ama wadamo badan oo adduunka oo dhan ka kala yimaada ilaa 140 wadan oo kala duwan adduunka kala yimaaday. xilligan waa xilliyada ugu fiican oo la yiraahdo waa in barnaamijka la duubo waa rush hour ka xilliga la yiraahdo ama xilliga laga soo rawaxay waana 5 galabnimo. magaaladana waxaa u soo dhow December oo fasaxyada inta badan la qaato oo xilliga holiday times la yiraahdo. marka Soomaalida reer Soomaaliya iyo kuwa kale ee adduunka waxay inta badan ku yaqaanaan magaalada London ay ku barteen weligooda waadi raadiyaha 40 sano ka hor waqtiyadaas BBC Somali ay ku barteen ama Bush House ay maqli jireen mar walba. marka maanta waxaan rabaa in aan idin tuso Bush House ka hor waxaad aragtaan baaskiiladan halkan saan ugu safan oo dhan waa kiro halkan ay yaalaan kaarka la geliya magaalo walba oo Europe iyo North America ay ku yaalaan. marka waxa naga soo horteena yaala Bush House hadii aad maqli jirteen meeshii BBC laga soo jiray hadda waa la bedelay waxa loo bedelay meel halkan u jirta dhowr kilomitir u jirta ayaa lagu bedelay oo la yiraahdo broadcasting house. laakiin meesha wali waxa iskale BBC iskale waxayna ku taalaa xaafadan Holborn oo bartamaha magaalada London. marka meeshii ay ka soo gudbin jireen runtii hadda sanadadii ugu dambeysay inta Kenya la geeyay iyo wixii ka dambeeyay BBC aad ay isu bedeshay oo dadka inta badan waxay yiraahdaan dad waxa yimaaday xogaha dhanka wareynimada iska qootaysanaya yimid waayo waagi Saciid Cali Yunis Abdullahi Haji iyo gabdhihii caanka ka shaqeyn jireen meeshan waxay ahayd aad ay loo dhageysan jiray professional ay ahayd laakiin hadda runtii isbedel aad u weyn ayaa ku dhacay. meesha waxa kale oo la yiraahdo Theatreland ayaa la yiraahdaa ama waa tiyaatarada ugu faraha badan ee magaalada ayaa halkan ku yaala. marka waxaan eegaynaa iminka meeshan la yiraahdo Bush House ayaan eegaynaa oo isla bartamaha magaalada London ku yaala. marka mar walba sharciga traffiga waa in la ilaaliyo sababtoo waxa dhacaya in gaari uu ku dardaro tagaasida caanka ah ee magaalada lagu yaqaan waa kon iyo basaska caanka ah ee lagu yaqaan magaalada London. marka afaafkan hore waxaad ku aragtaan Bush House ki caanka ahaa ee magaalada London lagu yaqaanay ayaa halkan ku yaala. marka waa intuu Bush House kan ilaa hadda waxa isticmaasha BBC ayaa isticmaasha waxaan u taaganahay traffic light ayaan sugaya. marka Bush House ka runtii hadda ka horeeyaan waxaan ku qaabilnay meeshan gabadha Congress-ka Mareykanka ku jirta Ilham Umar ayaa halkan ku qaabilnay. Bush House kan oo jeedaan albaabka hore ama afaafka hore ee laga galo. dhankan kale aad u jeedaan waa Bush House ka ku yaala Aldwych. dhankan kalena waxa ku taala hadii aan eego waa Theatreland ayaa la yiraahdaa. kan waa Bush House entrance. dhanka kalena waxa ku yaala King's College ee ku leeyahay jaamacadihii aan ka hadlay. Waldorf Hotel ayaa ku yaala oo dhanka dalxiisayaasha ah. dhankan waa Holborn ayaa noqonaysaa iyo meelo badan oo insha Allah aan doonayo in aan mustaqbalka aan idin tuso. marka Theatreland-ka waxa lagu dhigaa shows-ka ama riwaayadaha ay ka mid yihiin Lion King iyo kuwa kale oo fara badan qof walba wuxuu xiiseeyo ugu yimaado. marka Bush House dhankan waa West Wing meesha radio-ga afka Soomaaliga laga soo gudbin jiray radio-ga aad u fara badan luqadaha Sawaaxiliga wax walba ayaa ku yaala. marka hadda waa laga wareejiyay sidan ku maqlay. marka waxaan isku dayaa inaan ku laabto dhanka kale Holborn aan ku laabto. marka waa meelaha ugu muhiimsan boqolaal sano ka hor la dhisay magaalada London. xilligana waa gobol dhacsaad ku aragtaan waana waqti lagu jiro bisha December ee dhamaadka sanadka 2019 oo qabow aad u weyn uu jiro. marka tan ugu weyn aan u imado waxay ahayd in aan tuso Bush House-ka ee meesha ku yaala radio-ga laga soo gudbin jiray oo ah ila baro my hometown magaaladayda London. marka waxaan aadayaa dhankan kale ayaan aadayaa wadada way furan tahay mar walba dadku waxaan yiraahdaa
waddada iska ilaaliya. London dhanka bidix iyo dhanka midigba gawaaridu way ka yimaadaan, marka hadday waddada xiran tahay waa in aad iska ilaalisaan. marka holiday season ayaa lagu jiraa. holiday seasonkaas oo ah xilliga fasaxyada ay bilaabanayaan, qabowga uu bilaabanayo, magaaladuna ay noqonayso mid dad badan oo dalxiisayaal ah ay yimaadaan iyagoo kala imaanaya meelo kala duwan. marka cuntada ugu caansan waddanka Ingiriiska ah halkan ayaa ku aragtaan waxaa la yidhahdaa Yorkshire pudding ayaa la yidhaahdaa, oo ka yimaada gobolka Yorkshire ee isla waddankan Ingiriiska ku yaalla waqooyiga waddanka Ingiriiska, oo gobollada ugu caansan waddankan. waa Cafe Society, Cafe Nero, waxaa kaloo arkaysaa kafeeyada ugu caansan ee lagu jecel yahay waxaa la yidhahdaa Costa Cafe ayaa la yidhahdaa. Costa Cafe waa kafeeyada aanan ku arkin North America, Canada iyo Maraykanka aan ku arkin, laakiin waxay aad u buuxaan waddankan Ingiriiska. Tim Hortons ayaa lagu arkaa waddanka Canada. marka waa kan waa la soo rawaxayaa, iminka ayaa laga soo rawaxayaa meelaha kala duwan ee magaalada. marka mar kale haddii aan isha ku sii dhafano intaan ka tagin Bush House, waad u jeedaan Bush House waa dhankaas. jawiga ugu fiican ee video lagu duubi karo na waa xilligan ayaa ugu wanaagsan, waayo qoraxdii ayaa sii dhacaysa, mugdina lama soo gelin weli. marka magaaladan waxaa la yidhahdaa inta badan dadka guri la'aanta ah ama homelesska ayaa aad ugu badan, xilliyadana aad ayaa lagu arkaa. runtii qabowgana habeenkii xaraaraddu waxay gaartaa minus ayay gaartaa, loomana adkaysan karo. sidaa awgeed mar walba waxaad arkaysaa dad ka yimid waddamadan kale xilligii la furay waddanka 2004 ee loo furay waddamada bariga Yurub, in dad badan oo u dhashay waddamadaas dadka kale la yidhaahdo jibsiga ee waddankan ay aad u yimaadeen, iyagoo inta badan waddooyinka taagan oo ku dawarsanaya. inkastoo waddankan uu yahay waddan ku dhisan welfare system ku dhisan uu yahay, oo cayd iyo guri iyo gunooyinka guryaha loo ogol yahay, haddana markii ugu horreysay taariikhda waxay arkeen dadka reer Ingiriis dad dawarsanaya. yaab bay la noqotay, waayo dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey waddankan systemka ku dhisan wuxuu ahaa in qofna gaajo aan qaban, qofna guri la'aan aan ku dhixin, laakiin dadku way ku adkaatay, aad bay u yaabeen. marka meeshan waxaa laga kiraysaa saad ku aragtaan baaskiiladan, oo hadda sida la ii sheegay Muqdisho xataa lagu wado in laga kiraysto baaskiilada noocan ah. kolley meelaha la geyn doono weli lama soo sheegin, laakiin waa ra'yi aad u fiican. duqa magaalada Muqdisho hadduu baaskiilo kira noocan uu keeno, magaalada traafikada ayaa ka yaraanaysa, dadkuna xoogaa waxay sii noqonayaan caafimaadkooda ama health wuxuu samaynayaa improvement. marka styleka u dhisan yahay caasimadda waa kan. guryahan waxaa la kala yidhahdaa Edwardian, Victorian, magacyadaas waxay ka yimaadeen boqortooyadii waddankan. waddanka waa boqortooyo, United Kingdom. marka waddankan dadka intooda badan ma yaqaanaan. waa 4 waddan oo isu tegey, kuwaasoo kala ah waddanka ugu weyn oo England ah, Scotland oo ku xiga, Wales iyo North Ireland ama waqooyiga Ireland. waxaa kaloo jira waxa la yidhahdo British Isles, wax la yidhaahdo ama jasiiradda Britishka, kaas waxaa ku jira Irelandta madaxa bannaan ayaa ku jirta. marka intaas waddan ay ka kooban tahay. Ingiriiska ayaa ugu dhaqaalo weyn, uguna dad badan, uguna weyn, oo caasimaddana waxay gebigood u tahay magaalada London. Wales caasimaddooda waa Cardiff, Scotland waa magaalada Edinburgh, North Ireland waa magaalada Belfast. laakiin tan ayaa gebi ahaantooda ka wada dhaxaysa, oo qof walba uu leeyahay waa caasimadda UK. inkastoo marar badan la isku dayey in la kala jaro, la isku dayey. marka maanta barnaamijka kale aan duubay waxaan ka hadlay dhanka iyo jaamacadaha. marka dhismahan waa campus ka mid ah London School of Economics and Political Science. dhismahan aa meeshaad ku aragtaan waana kuwa ugu muhiimsan ee adduunka ee siyaasiyiinta iyo madaxweynayaasha waddankan laga soo doorto. marka insha Allah waxaan isku dayayaa meelaha ugu muhiimsan ee caasimadda in aan idiin soo gudbiyo, aan idinla wadaago, si aad u bartaan magaaladayda aan ku noolaa inta ugu badan ee noloshayda. oo aan jeclahay qof walba oo Soomaali oo dadweynaha ku nool iyo kuwada ku nool aan aqoonta u lahayn isla magaaladan ku nool intaasoo sano aan ogeyn in ay la bartaan. barnaamijkan barnaamij la mid ah oo aan ugu magac daray My Hometown Blog, My Hometown London Blog. intaan kulmi doono anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil, waxaan idin leeyahay wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.